waan ku bogaadinaynaa madaxda dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda iyo maxaan ku raadayay dowladahoodu inay isugu tageen dhuusamareeb oo ay bilaabeen madashaas ama gogoshaas ay ku aruureen kuna tashanayaan waxaan filayaa inay ka soo baxdo mid horseeda dadku inay tashadaan wada tashigu intaas ka sii ballaarto saamilayda siyaasadeed oo dhan oo ay ugu horeeyaan xisbiyada siyaasadda ay maxaan ku raadayay ka wada qayb galaan hoggaanka dalkana waxaan leenahay ka daahinina dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaankeedu inay ka waantoobaan aqligu u soo noqdo wixii ay sameyn jireen iyo wadadii ay sameyn jireen wada aan ahayn inay hadda cabiraan in loo baahan yahay waan soo sheegnay wixii hore khilaaf iyo kala qaybsanaana ka dhalatay shirkaas bilowday maanta oo Soomaalidu ay saa u soo wada eegaysa ee dhuusamareeb ka socdo waxaan rajaynaynaa inaanay carqaladeynin haddii ay intaa ka dhowrsan waayaan dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ama madashu ay u sheegaysaa cawaaqibka ka dhasho tallaabada dowladda dhexe ay Muqdisho ka qaado iyo go'aanada siyaasadeed ama dhaqanka siyaasadeed oo ay la yimaadaan mas'uuliyadeeda ayaga u baa qaadayo cid kale la qaadayso la wadaagaysa male ummadda Soomaaliyeed horteeda ayaga mas'uuliyadaas ku qaadayo wixii dhibaato ay xumaan ay ka yimaado iyo lugooyo ay ka yimaado Ilaahay hortiina ayaga ku qaadayo hadallada ay ku dhawaaqeen oo markii aad loo nuxur eego hoos loo eego wali aan cadayn laakiin kuwii ugu horeeyay ka soo baxay waxaan leenahay micnaaya si fasira dadka u sheega wax aad ka wadaan cadeeya wax badan oo muxuu ahay aanan la garanayn dastuurka federaalka ee Soomaaliya iyo sharciga doorashooyinka ee madaxweynuhu uu xigtay waxay qorayaan 4 sano waaye mandate-ka madaxweynaha iyo mandate-ka xilli xilaadka madaxweynaha iyo xilli xilaadka baarlamaanka 4 sano waatan aan sheegayno 100 maalmood ka yar ee bilowgeeda ay ka dhiman tahay marka looguma marsiyoon karo dastuurku wuxuu qorayaa waxyaabo kale